السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Khalid Maxamed. channelka daawanaysiina waa Daryeel Media. fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelka daawanaysid, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale muuqaalka aad like saarto. mahadsanid. waxaa maanta muuqaalkan uga hadli doonaa fagaara ka hadalka iyo qofka siduu cabsida iskaga ilaalin karo. waa suurtagal in xilliga ardaynimadu iyo waqtiyada nolosha weli bilowga tahay aanu qofku dareemin baahida uu u qabo fagaara ka hadalka, laakiin markasta uu nolosha hore ugu sii socdo waxa uu cadaanayso muhiimadda ay leedahay in qofku uu dad ka hor hadli karo, in su'aalaha fagaaraha lagu weydiiyo oo si kalsooni leh ugu jawaabi karo, iyo inuu u adkeysan karo qosolka iyo faallooyinka taban ee ereyada qursiga ah ee mararka qaarkood kaga imaan kara dadka uu la hadlayo. qodobadan soo socda waxay qofka ka caawin karaan inuu xakameeyo ama meesha ka saara cabsida uu ka qabo fagaara ka hadalka. 1. raadi fursadaha aad dadka hortooda ka hadli karto xitaa haddii ay yihiin 3 qof oo keliya. 2. ku bilow dadka aanu ka hor hadalkoodu dhibaatada kugu keenayn sida saaxiibadaada iyo xubnaha qoyska, kuna dadaal in marka aad hadlayso uu codkaaga kor ahaado. 3. ku dadaal mowduucyada aad jeceshahay. marka aad ka hadlayso waxa aad jeceshahay, dadka aad jeceshahayna ka hor hadlayso, way adag tahay inaad dareento cabsi, waxa aad xakameyn karaysaa cabsidaada. 4. markasta oo aad hadasho ku dadaal inaad ogaato dareen iyo aragtida dadka ka qabaan hadalkaaga, xitaa haddii aad hadal ku weydo ku dadaal inaad indhaha dadka ka akhrisato dareenka ay khudbadaada ka qabaan. 5. inaad jamaahiir ka hor hadashaa waxa kaliya ay u baahan tahay inaad dhisto horumarisana sheekooyinka aad rabto inaad dadka u sheegto. 6. bilow inaad sheeko iyo hadallo ka jeediso goobtaada shaqada iyo inaad shararka iyo kulamada ka hadasho marka ay munaasib tahay. sidoo kale ku dadaal daawashada khudbadaha laga jeediyo fagaarayaasha kala duwan, waxa ay kaa caawinaysaa inaad ka qaadato tilmaamo iyo duruus kaa caawinaya hadalkaaga mustaqbalka. halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa mowduuceena fagaara ka hadalka. waxaan rajaynayaa wax inaad ka fahantay ama aad ka faa'iiday. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.